حميد مجيد. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله. waxaan ku jirnay darsigii kitaabka suwar min xayaati asaxaaba. waxaa dhex noo maraya taariikh nololeedkii saxaabigii saciid bin caamir aljumaxi radia allaahu canhu wa ardaah. waxaan ka soo hadalnay qeybtii hore ee nolosha saciid. maanta waxaan ka hadlaynaa noloshii saciid bin caamir aljumaxi ee nebiga markuu dhintay kadib oo khilaafadana ay qabteen abubakar iyo cumar. si gaar ahaaneed markuu cumar khilaafada qabtay asaga iyo saciid waxyaabihii dhex maray. wa kaana khaliifataa rasuulillaahi, labadii khaliifa ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ahaayeen yacrifaani kuwo u aqoonsan lisaciid ibni caamirin. saciid bin caamir waxay u aqoonsanaayeen sidqahu runtiisa iyo wa taqwaahu alle ka cabsigiisa. wayastamicaani waxayna maqli jireen ilaa nusxihi taladiisay maqli jireen. wayusiiqaani waxayna u dheg raaricin jireen ilaa qowlihi hadalkiisay u dheg raaricin jireen. oo nin ilaahay ka cabsado oo runloowa inuu yahay ogaadeen. saa darteed way u aqoonsanaayeen saciid runtiisa iyo alle ka cabsigiisa, warkiisana way dhegeysan jireen. wa kaana khaliifataa rasuulillaah, labadii khaliifa ee rasuulka waa abubakar iyo cumar waxay ahaayeen yacrifaani kuwo u aqoonsan lisaciid ibni caamir aljumaxi sidqahu runtiisa iyo wa taqwaahu alle ka cabsigiisa. wayastamicaani waxayna maqli jireen ilaa nusxihi taladiisa. wayusiiqaani waxayna u dheg raaricin jireen ilaa qowlihi hadalkiisa. dakhala calaa cumar ibni khadaab, marka maalin maalmaha ka mida saciid dakhala wuxuu usoo galay calaa cumar ibni khadaab ayuu usoo galay fii awali khilaafatihi, madaxtinimadiisa markay bilowga ahayd. yani cumar markii madax laga dhigay bilowga markay ahayd ayuu usoo galay. faqaala wuxuu yidhi saciid, yaa cumaru cumarow, uusiika waxaan kugula dardaarmayaa an takhsha allaaha ilaahay inaad uga cabsato finnaasi dadka arrimahooda inaad ilaahay uga cabsato ayaan kuu dardaarmayaa. walaa takhsha nnaasa dadka ha uga cabsanin fillaahi ay fii diinillaahi, ilaahay diintiisa dadka ha uga cabsanin oo waxyaabo diinta ku saabsiisan fulinteeda ha ka baqanin. dadka adigoo ka cabsanaya ha ka joogsanin, laakiin dadka sida aad u maamuli lahayd ilaahay uga cabso. uusiika an takhsha allaha, ilaahay inaad ka cabsataan kuu dardaarmayaa finnaasi dadka dhexdooda. walaa takhsha nnaasa dadkan ha uga cabsanin fillaahi fii diinillah, ilaahay diintiisa. wa anlaa yukhaalifa inuusan khilaafin ayaan kuu dardaarmayaa qowluka hadalkaada, ficlaka ficilkaada inuusan khilaafin. oo lima taquuluuna maa laa tafcaluun waay, maxaadan samayn ha isku dhihin. fa ina khayra alqowli hadal waxaa u fiican maa sadaqahu lficilu, wuxuu ficilku rumeeyo. qofku wuxuu dhahay inuu fuliyo, hadalkaasaa u kheyr badan. weli dardaarankii wadaayo wuxuu yidhi, yaa cumaru cumarow, aqim ku toosi wajhaka wejigaada ku toosi liman cid wallaaka allaahu ilaahay madax kaaga dhigay amrahu arrinkiisa ilaahay uu kuu dhiibay, oo min baciidi almuslimiina muslimiinta kooda fog ah iyo wa qariibahum kooda dhow ah. wejigaada ku toosi maxaa laga wadaa? arrimahooda si fiican iskaga fiiri, awaamirtaada si fiican iskaga fiiri, howlahaaga si fiican iskaga fiiri. waa lay maqlaa baan rajeynaya. markaa wuxuu leeyahay, yaa cumaru cumarow, aqim wajhaka wejigaada toosi, si fiican iskaga ilaali liman wallaaka allaah ciddii ilaahay kuu dhiibay oo madax kaaga dhigay amrahu arrinkiisa, oo min baciidi almuslimiina muslimiinta kooda fog ah iyo wa qariibihim muslimiinta kooda dhow ahba. wa axibba la jeclow lahum muslimiinta waxaad la jeclaataa maa wax la jeclow tuxibu aad la jeceshahay. wa axibba la jeclaaw lahum muslimiinta waxaad la jeclaataa maa wax tuxibu aad la jeceshahay linafsika nafsadaada iyo wa ahla beytika qoyskaaga. wakrah la nac lahum muslimiinta waxaad la nacdaa maa wax takrahu aad la neceb tahay linafsika nafsadaada.
naftaada waxaad la jeceshahay oo qoyskaada la jeceshahay muslimiinta la jeclow, naftaada waxaad la necab tahay qoyskaada la necab tahana muslimiinta la naca oo ahla beytika iyo qoyskaaga. wakhud dhex dabaaloo dhex qaado isku tuur alkhamaraati caqabadaha oo ilal xaqi xaqa dhankiisa ahaaday isku tuur oo wixii caqabad oo laakiin xaqa ilaahay kaasoo hor istaaga ha u istaagin dhexmar waay. wakhud isku tuuroo dhex qaadoo dhex dabaalo alkhamaraati waxyaabaha kaa hor istaagan ama caqabada kaaga ah ilal xaqi xaqa dhexdiisa. walaa takhaf ha uga cabsanin fillaahi ilaahay dartii iyo ilaahay diintiisa ha uga baqanin lawmata laa'imin mid wax canaanta canaantiisa ha ka cabsanin. talo fiican u dhiibay marka cumar taladii wax weyne la noqotay. faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi ilaahay ka raali noqday waman yastadiicu daalik arrintaa yaa awooda yaa saciidu saciidow arrintaa yaa samayn kara wallaahi talo weyn oo adag baad ii sheegtay. faqaala wuxuu yidhi saciid yastadiicuhu waxaa awooda rajulu nin oo mithluka adigoo kale ah minman cid ayaa awooda wallaahumullaahu ilaahay uu dhiibay amra ummati muxamedin ummadda nebi maxamed amarkeeda walxaal laysa aysan ahayn beynahu asaga iyo wa beynallaahi ilaahay dhexdiisa axadun qofna. qofka asaga ilaahay aysan cidna u dhexayn oo ilaahay uu madax ka dhigay oo adiga camal ah awoodi karo waxaa samayn karaa. taladaasuu siiyey marka. cinda daalika markaa agteeda marka dacaa uu u yeeray cumar ibni khataabin saciidan saciid ibnu caamir ayuu u wacay wuxuu ugu wacay ilaa mu'aasaratihi inuu xoojiyo inuu kaalmeeyo xoojiyo u wacay. taladiiu siiyey maalmo kadib cumar wuxuu yidhi saciid ha laygu yeero. waqaala wuxuu ku yidhi yaa saciidu saciidow innaa annaga haddaan nahay dowladdii iyo madaxdii muwalluuka waxaan madax kaaga dhigaynaa calaa ahli ximsin ximse meesha la yiraah ayaan madax kaaga dhigaynaa wa markaa dhulkii shaamay ku taalay. faqaala saciid hadda nin adduunyo rabo ma ahayne xilaa lagu dhiiba hadda qof haddii la yidhaahdo waaba kala badbadan lahaa wuxuuba dadka qaar markii xil loo dhiibo waxay dhigtaa xaflad lagu faraxsan yahay oo lagu soo dhoweynayo xilkaas laakiin qofka waxbaa qoorta loo geliyo adduuniya aakhiraba aan looga heray culaysaa qoorta loo geliyo qofka ilaahay ka cabsanaya dareemaya marka culayskaas. faqaala wuxuu yidhi saciid yaa cumaru cumarow nashadtuka allaaha ilaahan kugu dhaariyey allaa taftinanii ha ifitnaynin allaa taftinanii war ha ifitnaynin niyow war adduunyada ha igu fitnaynin cumarow maxaa ka wadaa madaxan kaa dhigay ah. faqadiba cumaru cumar waa xanaaqay wa qaala wuxuu yidhi kolley dadkaasi dadka hadda isma lehe wayxak war hooge wadactum waad ii dhiibteen haadal amra arrinkaana waxay geliseen oo saarteen fii cunuqi luquntayda qoortayda uma kadibna takhallaytum waa iiga siibanaysiin miyaa canii aniga wallaahi ilaahi baan ku dhaartay laa adacuka kaa tegi maayo buu yidhi. cumar waa xanaaq sababta cumar u xanaaq waxay ahayd saxaabada intooda ilaahay ka cabsanaysa mid kasta markuu u wacaba warni waa i fitnayn xilkan ha ii dhiibin waa ka cararayaan xil. wuxuu yidhi marka wadactum waad dejiseen haadal amra arrinkan oo madaxtinimada iyo amiirmuminiin inaan noqdo fii cunuqi idinkaa ii dhiibta buu yidhi idinkii ii dhiibtay haddana sama markaas kadib takhallaytum waa iiga siibanaysiin canii ana xaggee yani ma igu kaalmaynaysiin miya ma iga dhex tegaysiin wallaahi ilaahi baan ku dhaartay laa adacuka niyow kaa tegi maayo qabso meeshaas madaxan kaaga dhigeen uma markaas kadibna wallaahu madax ayuu uga dhigay calaa xims. saciid warka waa iska aqbalay ilaa waa gar madaxweynihii oo haddaa kulligiin igu wada siibatiin aniyaa wax ii qabanayo wa wax ila qabanayo. uma wallaahu kadibna madax ayuu uga dhigay calaa ximsin ximse meesha la yiraah. waqaala wuxuu yidhi cumar alaa nafridu sow kuuma qorayno laka adiga risqan mushaar sow lacag kuma siinayno hadda waa sii socotaa ximsaha u socotaay bal xoogaa arsaaq iyo lacag ah sow kuma siinayno. qaala wuxuu yidhi wamaa afcalu bihi maxaan ku samaynaa lacagta yaa amiira almu'miniin amiirulmu'miniin oo beesa waxaan ku samaynayaa see yeelayaa beesada see yeelayaa waaya fa ina cataa'ii waxyaabaha layga siinayo min beytilmaali guriga xoolaha oo muslimiinta ay leeyihin bankiga waaye yasiidu waaba ka badan yahay can xaajatii baahideyda. uma markaas kadibna madaa ilaa ximsin ximse ayuu aaday muslimiintu
waxay lahaayeen wax la yidhaahdo baytulmaal oo la dhigi jiray xoolaha muslimiinta ka dhexeeya ayaa la dhigi jiray. muslimiinta wixii la siinayana meeshaasaa laga bixin jiray. wuxuu shaqayn jiray marka sidii bangi camal. saxaabada markay muslimiintu meesha qof walba lacagu ku lahaa. saciid wuxuu yidhi lacagta baytulmaalka layga siiyaa igu filan beese kale ma rabi. wamaa afcalu bihi maxaan ku sameeya amiira almu'miniin. waa maaragta yurub iyo maraykan hadda soo cayr lagama bixiyo oo shacabka wax lama siiyo. weli waxay iyaga baxsadaan lagu celiyaa oo caymis iyo waxbay geliyaan. waa sidii xilligaas annagaa ugu horreynay oo maaragta cumar bin khadaab noocyada kala duwan ee bulshada baytulmaalka lacagay ku lahaayeen. qaala wuxuu yidhi wamaa afcalu bihi maxaan ku samaynayaa amiira almu'miniin fa ina cataa'ii waxa layga siiyo min baytilmaali baytulmaalka yaziidu can xaajatii asaaba baahideeda ka badan. uma madaa ilaa ximsin ximse ayuu aaday meeshii madaxda looga dhigay ayuu aaday. waxaa dhacay markaa kadib famaa huwa ilaa qaliilun muddo yar maba kasoo wareeganin xataa wafada waxaa u yimid calaa amiiri almu'miniina mu'miniinta waxaa u imaaday bacdu man kuwa qaarkood yasiqu bihim uu ku kalsoon yahay oo min ahli xims reer ximse ah. dad akhyaar ah oo fiican oo reer ximse ah oo uu ku kalsoon yahay ayaa cumar u yimid. faqaala lahum wuxuu ku yidhi uktubuu iisoo qora lii aniga waxaa iisoo qortiin asmaa'a fuqaraa'ikum fuqaradiinna magacyadooda iisoo qora xataa asudda ilaa aan daboolo xaajatahum baahidooda. magaalada dadka fuqarada oo jooganayow iisoo qora baahidoodaan daboolaya. fa rafacuu waxay u qoreen oo u geeyeen kitaaban qoraalay u geeyeen warqaday u qoreen. fa idaa isla markaaba fiihi warqadii waxaa ku qoran fulaanun hebel wa fulaanun hebel iyo wasaciid ibni caamir. dadka fuqarada magaalada ximsa saciid bin caamiraa ku jira. faqaala cumar wuxuu yidhi waman saciid ibna caamir waa rumaysan waa wuxuu yidhi ama isku magac yihiin. kaasuu yidhi waman saciid ibna caamir war saciid ibna caamirkaa sheegaysid waa ayo waa sheegaysaan waa ayo. faqaaluu waxay dhaheen amiirunaa ka amiirka noo ah waaye ka amiirka noo ah oo madaxda noo ah fuqarada magaalada ku tirsan yahay. qaala wuxuu yidhi amiirukum faqiir waaba wax lala yaabee amiirkiina maaba faqiir ahbo. qaaluu waxay dhaheen nacam haa wawallaahi ilaahay baan ku dhaaranay innahu latamuru waxaa soo maraysa calayhi korkiisa al ayaamu maalmo addiwaalu dhaardheer walaa yuuqadu lagamana shidaayo fii beytihi gurigiisa naarun dab. maalmo tiro badanaa gurigiisa soo maraysa hal dabne laga shidi maayo waay macnaha. waaye fabakaa cumar waa iska ooyey xataa ballalat ilaa ay qoysay dumuucuhu ilintiisaa waxay qoysay laxyatahu garkiisa. ilintii cumar ka socotay aa garkiisa qoysay. uma markaas kadibna camada cumar wuxuu aaday ilaa alfid wuxuu soo qabsaday waa uma qasada camada ay qasada wuxuu u qasday oo uu keensaday waay ilaa alfi diinaarin cafwan. uma markaas kadibna qasada wuxuu keensaday cumar oo uu u qasdoo aaday oo soo diyaarsaday ilaa alfi diinaarin 1000 diinaar. fajacalahaa markaa wuxuu dhex dhigay fii suratin shandad yar hal yaroo lacagta lagu ridan jiray shandad yar ama sanduuq yar ayuu dhex dhigay. faqaala wuxuu yidhi iqra'uu ku aqriya calayhi saciid assalaama salaan iiga gaarsiiya minii ana xaggayga. waquuluu lahu waxaa ku tidhaahdaan bacatha ilayka waxaa kuu soo diray adiga amiirulmu'miniin amiirulmu'miniin ayaa kuu soo diray bihaadal maali xoolahan litastaciina bihi si aad ugu kaalmaysato calaa qadaa'i xaajatika baahidaada. salaan iga gaarsiiya waxaana ku dhahdaan amiirulmu'miniina xoolahan kuu soo diray si baahiyahaada aad ugu gudato baahiyahaada aad ugu dhammaysatid. jaaa alwafdu wafdigiyaa soo noqday marka lisaciidin saciid ayay u imaadeen. maxay u keeneen bisurati shandadii ama sanduuqii yareydee lacagta ay ku jirto ayay u keeneen. fa nadara waa fiiriyey ilayhaa xaggeeduu fiiriyey fa idaa hiya waxaba sanduuqa yarkaa ku jira danaaniiru lacag waayba diinaar wa. fa jacala wuxuu bilaabay yubciduhaa inuu iska fogeynayo
canhu xaggiisii sanduuqii buu iska dheereeyey wahuwa yaquulu asagoo leh innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kaas innaa lilaahi ilaahay baana leh wa innaa anagana ilayhi ilallaahi baan raajicuun u noqonaynaa buu ku celcelinaya kaannamaa waxaabaad u malaysaa nasalad inay kusoo degtay bihi saciid naasilatun musiibo oo amase xalla ay kusoo degtay bisaaxatihi bannaankiisa khadbun balaayo ama musiibo inay kusoo degtaa u malaysaa kaannamaa nasalad waxaaba u malaysaa inay kusoo degtay bihi asaga naasilatun musiibo soo degtay oo xalla ama ay soo degtay bisaaxatihi barxaddiisa yacni waa gurigiise khadbun balaayo inay kusoo dhacday buu u maleeyay fahabbat waxaa soo booday zawjatuhu xaaskiisiyaa soo booday madcuuratan ayadoo argagaxsan fahabbat waxaa soo booday zawjatahu xaaskiisiyaa soo booday madcuuratan ayadoo argagaxsanay soo booday wa qaalad waxay tiri maa sha'nuka yaa saciid war saciidow maxaa kugu dhacay amaata amiirulmu'miniin amiirulmu'miniinkii miyaa dhintay qaala saciid wuxuu yidhi bal waxaaba ii yimid acdamu min daalik arrintaa wax ka weyna ii timid amiirulmu'miniin dhimasho waaba loo joogaaye wax ka weyna ii yimid qaalad waxay tiri a usiiba almuslimuuna muslimiinta miyaa lagu asiiboo looga adkaaday fii waqcatin dagaal war muslimiinta waa intay dagaal galeen baa dagaalkii looga adkaadoo lagu dhameeyey a usiiba almuslimuun muslimiintii miyaa looga adkaaday fii waqcatin dagaal qaala wuxuu yidhi bal acdamu min daalika maya arrintaa wax ka weyna i haysato qaalad waxay tiri wamaa acdamu min daalik amiirulmu'miniin hadduunan dhiman muslimiintana dagaal aan lagu jebin oo lagu dhammayn war maxaa ka weyn qaala wuxuu yidhi saciid waa ummad kale dakhalad waxaa ii soo gashay buu yidhi calaya dunyaa adduunyadii waa ii soo gashay litufsida aakhiratii si ay aakhiradeeda iga fasahaadiso waxallad waa soo degtay alfitnatu fitnaa fii beytii gurigeyga soo degtay buu yidhi war ma ogid adduunyaaba iisoo fariisatay inta si aakhiro iiga fasahaadiso fitnadiina si u soo socotay gurigeyga dalaq soo tiri islaan iska daacaday ahayd fitnadu waxay tahay iyo waxaa ma dhihina qaalad waxay tiri yatakhallas minhaa iska fogee ka takhallus takhallas iska fogee oo ka takhallus ooba fitnada iska dheeree minhaa xaggeeda wahiya ayaduna laa tadri ma oga min amri danaaniiri lacagahii xaalkoodii shay-an waxba kama ogo lacagaha la sheegayo ida wax kama ogo qaala wuxuu yidhi awa tuciinunii ma iigu kaalmaynaysaa calaa daalika islaantaydii ma iigu kaalmaynaysaa fitnada inaa iska fogeeyo qaalad waxay tiri nacam haa nin wadaadkaygoo fitna ee soo food saarta seana ugu kaalmaynaynay inaan ka fogeeyo fa akhada danaaniira marka diinaaradii ayuu soo qabtay fajacalahaa wuxuu dhigay fii surarin sanduuqyo yaryar uma markaas kadibna wasacahaa wuxuu u qeybiyey calaa fuqaraa'i lmuslimiin muslimiinta fuqaradooda u qeybiyey islaam fiican oo kheyr qabta ayay ahayd lam yamdi kama soo wareegin calaa daalika arrinkaas dawiilu waqti dheer kama soo wareegin xataa ataa ilaa cumar uu yimid cumar bni khadaab diyaara shaami dhulkii shaam buuba yimid bo awalka hore warkaa loo geynaye maanta lugihiisuu ku imaaday muxuu u yimid iyo yatafaqadu isagoo baarbaarayo axwaalaha xaaladeeda ilaa amiirulmu'miniin waaye falamaa nazala markuu soo degay biximse markuu soo degay wakaanad waxayna ahayd xims tudcaa mid lagu naanaysi jiray alkuwayfatu kuufa yarey ximse waxaa la dhihi jiray kuufa yarey aa la dhihi jiray wahuwa kuwayfana tasgiirun waa yarayn la yaraynaa lilkuufati kuufaa la yaraynaa watashbiihun waana u ekayn loo ekaysiinayo liximse ximsaha waxaa loo ekaysiinaa bihaa kuufa ximse iyo kuufa inay isku eg yihiina laga dhigaaho kuufadii weyneedna waa kuufadii ciraaq ku taalay ximsena waa kuufadii yareyd oo suuriya ku taalay wahuwa tasgiirun lilkuufati watashbiihun liximse ximsena waxaa loo ekeysiyey bihaa kuufa oo kuufa iyo ximso labada magaalood maxaa layskugu ekeysiyey likathrati waxaa badnayd baa la yidhi shakwaa sheegashada ahlihaa dadkeeda ay ka sheegtaan min cummaalihim yacni shaqaalahooda iyo wawulaatihim madaxda loo soo diro shaqaalaha dowladda ka imaado iyo madaxda dowladda ka imaado ayay markasta dacwo ka gudbin jireen magaalooyinka kale islaamka dhibkaas ma qabin ay kale dhibkaas qabin marka ximse iyo kuufaba labadaasay ka simnaayeen kamaa sida kaana ay ahayd waa tanaa yafcalu ahlulkuufa
ahlu kuufana saasay samayn jireen, ahlu ximsana saasay samayn jireen. marka labadooda waa laysku ekeysiiyo kuufo weyneed iyo kuufo yareedaa laga dhigay. falamaa nazala markuu soo degay bihaa cumar laqiyahu wuxuu la kulmay ahluhaa ahalkeeda ayuu la kulmay lisalaami si u salaamo caley laqiyahu waxaa la kulmay dheh cumar ayay la kulmeen ahluhaa ximse ehelkeedaa la kulmay lisalaami calayhi say u salaamaan faqaala wuxuu yidhi kayfa wajadtum saad u aragtiin amiirakum war amiirkiina iyo ninka madaxda laydinkaga dhigay maxaad ka heshoonoo yacni see u aragtiin waay fashakowhu ilayhi waa uga dacwoodeen saciid bin caamir ayay ka dacwoodeen wadakaruu waxay sheegeen 4 oo min afcaalihi ficiladiisa ka mid ah oo kullu waaxidin mid kasta oo minhaa 4 ka midana acdamu waa ka wanyahay min alaakhari kan kale waxay dhaheen amiirkeen 4 tilmaamood uu leeyahay oo ma aragta ceeba ah 4 ceebood uu leeyahay ceeb kastana tan kale waa ka weyn qaala cumar wuxuu yidhi fajamactu waan kulmiye baynahu saciid iyo wa baynahum dadkii dhexdooda wadacawtullaaha ilaahay ayaan bariyey allaa yukhayiba inuusan igu hoojinin dannii malahayga fiihi dhexdiis faqad kuntu waxaan ahaa buu yidhi cadiima hiqati mid kalsooni weyn ku qaba bihi saciid waxaan ahaa buu yidhi saciid bin caamir kalsooni weyn ayaan ku qabay marka ilaahay baa waxaan bariyey malaha aan saciid u malaynahay inuusan igu khasaarinin falamaa asbaxuu cumaraa weli hadalka watee wuxuu yidhi falamaa asbaxuu markay ahaadeen cindii aniga hum ayaka iyo wa amiiruhum kii amiirka u ahaaye madaxda u ahaaye guddoomiyaha u ahaa oo saciid ah qultu waxaan idhi marka hadda garaa la kala qaada garta yaa qaadaya amiirka weynaay amiirulmu'miniin yuu u kala qaadaa amiirka ximso iyo dadka ximso deganaa oo u kala qaadooyaa mahaanaa la fadhiyaa maxkamad camal qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi buu yidhi marka cumar maa tashkuuna maxaad kaga dacwoonaysiin min amiirikum war madaxweynihiin hadda maxaa ka sheeganaysaan qaaluu waxay dhaheen horta ceebta koowaada kuu sheegaynaa laa yakhruju maba noo soo baxay dhaheen ilaynaa xaggeenna xataa yatacaala nahaaru ilaa maalinta ay soo kor noqoto ilaa maalin caddeey laga gaaro oo maalinta ay kor imaato oo qoraxdu ay bannaanka imaato kadib nuu noo soo baxaa bay dhaheen laa yakhruju nooma soo baxo ilaynaa xaggeenna xataa yatacaalaa ilaa ay soo kor noqoto annahaaru maalinta فقلت وحير عمر وحائر وما تقول محاد كلا في ذلك دعوة يا سعيد سعيد ودعوة محاد كلا فسكت قليلا وحير وآمس ثم قال وحير والله إلهي وان كنت إني أنا وكنت وحانا هاوير أكره مد نعب أن أقول ذلك أرنت إنا كجوابه لكن أما وإنه ما داموا لا بد منه أن لقم مارمان نقطي وكجوابه أما وإنه ما دام أرنتاس لا بد أن لقم مارمان نقطي minhu inaan hadal ka dhaho maadaama ay lagama maarmaan noqotay hadalkii aan dhahahay dhegaysuu yiri fa inahu sha'niya laysa uma sugnaanin buu yiri liahli reerkayga khaadimu shaqaale ma haystaan ciddeeda shaqaale ma haysato fa aquumu aniga istaaga buu yiri fi kulli sabaaxin subax kasta wa ucajinu waa u cajiinaa waa u qasaa lahum ayaga cajiinahum cajiinkooda u qasaa uma markaas kadibna atarayasu waan sugaa qaliilan wax yaraan sugaa حتى يختمر إلى أو كقميره ثم مركز كتبنا أخبزه وأسو الدباء لهم أيضا ثم مركز كتب أتوضأ وأسوي سيستا وأخرج للناس ذات كانوا أصاب حابيس عدين شغالة ما يسد عجينك أو قصاء وأسوى أنتو كقميرة وأسو الدباء كتب أسوي سيستا ذات كانوا أصاب حاب مركز عدين حق هذا ولا يقرب حق ومطر ولا يقرب عد حق هذا مركز أسوي قطع ومطر أصاب حاب قال عمر وحير وقلت له محان كوير وما تشكون محاد سيدو كلا كجا دعوونيسان منه أصيغ أيضا هل عيبواتا والذي كجا جواب محاكا لو كشيغانيسان قالوا حيثها إنه أصيغ لا يجيب أمد جوابه أحدا قفنا بليل هبينك سيكستو أوغتك وقرقران ووعدي مرنا مصوبحا ننتنو مقالة مضحكة وهبينك صوبحا ننحاواي ويمرك دعوذي قلت محاربي عمر وما تقول في ذلك يا سعيد سعيد وارتها محاكا قال إني والله كنت أكره وحان نعبنا وير أن نعلن إن بنانك كانوا هذا كان أيضا سيدو كلا أردت أن إن بنانك شيء إعلامي وان نعبنا لك ويك جوابي ما دام مدحوينين أمير المؤمنين فأنا أنيق ويري قد جعلت وان أيالي النهار مالنتي وان لهم أيق أيالي مالنتي وأمدا وأذيقاه وشقيا
والليل هبينكينا لله إلهي ما ويالي وعبادة استه والليل هبينكينا لله عز وجل سؤاشي لبعد ولوغ الجواب قلت حيروي وما تشكون منه أيضا محاسبك الكشيغنس قالوا وحيدا إنه لا يخرج مبا صبح إلينا حنا حقين يوما مال في الشهر بشي هالمالين وكم بلاد بناك مصابحة حمسي حال كذا سويها إمده قلت حير عمر هدانا وما هذا يا سعيد سعيد وطلنا محيطها طلنا محات كلاذا قال وحير ليس لي خادم سان كو شيغي بشقال ما هيست يا أمير المؤمنين وليس عندي من هيستي ثياب در غير التي علي مدان قشنها دران هين ما هيستي وليس لي ثياب درنا ما هيستي وغير التي علي مدان قشنها عن كاهين فأنا أني مركة أغسلها وان دقا في الشهر بالشيبان مرة هل مر وأنتظرها وأنا سجى حتى تجف إلى أي كقلشوا ثم مركز كدبنا أخرج وأصبح إليه ما يجي حقه في آخر النهار ما لنت آخر كذب وأصبح أنا دار كلمات لو أنا وطاهستا بشي لو هالمرة نقضاه توني شنبري واقشتا أدروا نقضاه در توني شنبري كلا قشتا قادمنا مهست دركي مركا نقضو هي درك لو كوبا تشتمهست واسوسيغا انتو يجي سو قلالay kadibna asagan ku soo baxaa ceebtii saddexaad waa looga jawaabay subxaana allahi alcadiim uma qultu waxaan ku idhi wamaa tashkuuna minhu aydan maxaad kaloo kaga sheeganaysaan oo kaga dacwoonaysa qaaluu waxay dheheen tii ugu darneed waa tanaa tusiibuhu waxaa ku dhacda bay dheheen min xiinin ilaa aakhara waqti ka waqti yacni muddo markii la joogaba waxaa ku dhacdaa khashyatun miir daboolo gariir isdhow waa gariira waa miir daboolma fayaqiibu markaasuuba ka maqnaana caman ciddii fii majlisihi majliskiisa joogta waa madax magaalo dhan uu madax u yahay majliskiisii dadaa u imaanaya danay ka wada leeyihiin suu u joogo maruuba iska baxa halyiri korontada ka tagays u joogo fayaqiibu caman fii majlisihi faqultu waxaa yidhi wamaa haadaa ya saciid war saciid oo tanna maxay tahay bismi illah faqaala wuxuu yidhi cumar oo dhegeyso buu yidhi shahidtu waxaan joogay buu yidhi masraca khubayb bin cadiy khubayb bin cadi meeshii lagu dilayaan joogay wa ana mushrikun anoo gaal ah wa ra'aytu waxaanan arkay buu yidhi qurayshan qurayshoo tuqadicu googoynayso jasadahu jirkiisa googoynayso wahiya taquulu ayadoo ku dhahayso atuxibu ma jeceshaha an yakuuna muxamedun maxamed inuu joogo makaanaka booskaada fayaquulu asagana uu leeyahay wallahi ilaahay waan ku dhaartay maa uxibu ma jecli an akuuna aaminan inaan aamin ku ahay fii ahli ehelkeyga wa waladii caruurteyda وإن محمد النبي محمد تشوك وشوكة قضاح أي مدوه أصلا سعس أوليه أن جوغي بوير وإني أنا نبوير سعيد الله إلهي ما كنا أرطي ما ذكرت ما بحسوس تبويري ذلك اليوم مالين وكيف سذا أني أنا تركت إسكاقات دافي نصرته إن أنا أهيل ليه هيل لأنتي إذا مركان سوا حسوس ومالين كاس سوا حسوس إلا ظننت وحانو ملايا بوير أن الله إلهي لا يغفر لي إنه سيدا بدافين قفل الظلمين لقوقوين مسلم أو صادها markii gaalnimo ay hayso laakiin wuxuu yiri hadda markaan gadaalka iga fikiro waxa isku maleynaa buu yiri marmarka qaar ilaahay inuu ii dambi dhaafay wa asaabadni waana igu dhacdaa buu yiri tilka lagashatu miir daboolkaas ay igu dhacay wixii markaan soo xasuus naxadin iyo walwal iyo cabsi daraadeed waa miir dabool ma buu yiri عند ذلك مركا قال عمر وحير الحمد لله إلهي ما تسكله الذي كاس ولم يخيب أنا ما ركت يجوه جنين أو يجوه خسارني ظني ملاي به أنا ملاينا أيوه سعيد ثم مركز كذب مركا سبحان الله وحيابها مركز صحابها أذكر كيس غرائب تاس عجائب تاس سيدي حالنا الله صار شيء وايو إيمانك قفك ككينا إيمانك iyo yaqiinta iyo tawxiidka iyo islaamnimada yasnacu alcajaa'ib waxyaabo cajaa'ib leh ayuu sameeyaa waana sababta asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabo la yaab lehna looga soo warinayo sababta maxaa waaye iimaankii baa degay qalbigoodii buu degay marka iimaanka hadduu qalbiga degana yasnacu alacaajiib wa yasnacu almucjizaat saan soo aragnay kan marka sidii kow taariikhdiisa lagu soo bilaabo رجل اشترى الدنيا بالآخرة على وصوله هي الدنيا بقيمة وما فردوا مركب ما وحلا يديو بس هلا صادروا انت هلا جوردوا
انت qiimo ugu fiirsato waxa aakhiro waa yoolkiis aakhiro waana sida nala ka rabo annagoo dhan inaan hadafkeena aakhiro ka dhigno ilaahay baa uun adduunyada nagu intixaamay iimaankeena iska daciif ah yaqiinteena iska yar laakiin adduunyadan dhammaanays ee maalmaha yarka ah inaan aakhiradeena ku bedelano looguma talagelin laakiin nafta iyo shaydaan fitnadiisa iyo adduunyo fitnadeeda iyo iimaankeena oo sal fadhiya lahayn aakhiradii waxaa ka dhiganay secondary wax ma aragtay adduunyada markaa kasoo dhammaano aakhiro waana laba huraan marka ilaahay amarkii waxaada hurayn oo u socotid oo hubtid inaa aadaysid haddana isku diyaarinayso inkaar maaha marka nasal allah asalaamata walcaafiya suma markaas kadibna bacatha lahu wuxuu u diray bialfi diinaari marka saciid wuxuu tusaale u yahay qofka hogaamiyaha ee madaxda ah ilaahay madaxnimadiisa uga cabsada markay arrintii dhammaato ninkan faqri inuu yahay baahiyo badanna uu sheegay cumar markuu noqday suma bacasa wuxuu usoo diray lahu saciid bialfi diinaarin 1000 diinaar kalaa loo soo diray liyastaciina si ugu kaalmaysto bihaa kunkiya calaa xaajatihi baahidiisa falamaa ra'atahaa markay aragtay lacagta zawjatuhu xaaskiisii markay aragtay qaalat lahu waxay ku tiri islaam fiican aheed alxamdu lilah ilaah mahad iska leh alladii allihii agnaanaa nooga filnaaday can khidmatika kaalmadaada ishtar lanaa noo soo iibi mu'anatan alaab noo soo iibi wasta'jir lanaa noona qabo khaadiman shaqaale mar damba khidmadaada iyo hawshaada ma rabno waa yani meesha marka laga hadlaa lagama wado islaantu inaysa guriga wax ka qabanaynin waa kaalmeynaya marka waxay tiri khidmadaada ilaahay baaba nooga fidlaadee ishtari lanaa waxaa noo soo gadaa mu'anatan alaab noo soo gad wasta'jir lanaa khaadiman shaqaalana noo soo kireebet faqaala laha wuxuu yidhi saciid wahallaki war ma rabtaa fii maa wax huwa khayrun kaaga khayr badan min daalika arrintaas gabarii ay dhegeyso arrintaa wax kaaga khayr badan ma rabtaa qaalad waxay tiri wamaa daak waa arrintaa maxaa iga khayr badan qaala wuxuu yidhi nadfacuhaa lacagta waxaan u dhiibaynaa ilaa man qof ayaan u dhiibaynaa ya'tiinaa noo keeni doona bihaa lacagta wanaxnu annagoo axwaju uga baahi badan maa nakuunu intaan nahay ilayha xaggeeda maalin aan maanta uga baahi badannahay qof noo keena lacagta u dhiibaynaa buuri nadfacuhaa waxaan u dhiibaynaa hadda baahidan waaba iska buuxbuuxsan karnaaye laakiin maalinaan saa'id ugu baahannahay cid noo keenta aan hadda u dhiibanaynaa buuri waa hadda bangigaan gashanaynaa saa hadhow markaa baahidana noo qabataa ula soo baxno nadfacuhaa waxaan u dhiibaynaa ilaa man yaatiinaa cid noo keenaysa bihaa lacagta wanaxnu axwaju annagoo aad uga baahi badan maa nakuunu intaan nahay ilayha xaggeeda hadda baahidaa u qabno annagoo uga baahi badan yaa wuxuu yidhi lacagta ciddaasaa u dhiibanayna qaala waxay tiri wamaa daak oo ciddaas waa ayo yacni see marka u dhiibayna qaala wuxuu yidhi nuqriduha allaah ilaahay baan amaahsanaynaa qardan amaah ama dayn xasanan wanaagsan ilaaha u dhiibanaynaa fa yudaacifuhu lanaa marka hadhow waa noo laba laaba goormee meelaan hadda maraan hadda uga baahi badannahayo qiyaamo iyo cadaabkii ay naga hor istaagayso cadaabkii ay naga daboolayso ilaahay meel nagu gaarsiinayo oo maalina maanta uga baahi badannahay baa ilaahay noo soo celin doonaa iyadoo laba laaban ee islaayay taas iyo hadda inaan shaqaale kuu keeno teerabtaa waa macnaa middaa khayrka badan ma qaadanayo qaalad waxay tiri nacam haa wajuziita khayra hadda waa dad ilaahay iimaan qalbigooda dejiyey haabay tiri haa ilaahay khayraa ku siiya falamaa gaadara markuu ka baxay majlisahu meeshuu fadhiyey alladii kaasoo huwa fiihi uu ku sugnaa famaa gaadara dheh kama bixinba majlisahu meeshiisii alladii majlisko oo maaragta huwa fiihi uu ku sugnaa xataa jacala ilaa wuxuu yeelay addanaaniira diinaaradii buu yeelay fii surarin sanduuqo yaryar buu ku riday faqaala wuxuu ku yidhi liwaaxidin qof oo min ahlihi ehelkiisa kamida wuxuu ku yidhi lacagtii sanduuqyo yaryar u qeybiyey moogta indaliq ugee bihaa lacagtan ilaa armalati fulaan cidda reer fulaan la yidhaha gabadhoodii laga dhintay ugee ama gabadhoodii maaragtay garoobta ahayd ama laga dhintay oo maaragtay laga dhintay ugee wa ilaa ay taylaan gabadha laga dhintay kaalmaynteeda nabiga calayhi salaatu wasalaam asaaci cala armalati walmiskiin kalmujaahidi fii sabiilillah buu qofka gabadha laga dhintay ama gabadha maaragtay keligeed ku ah ilmaheeda u ordoo u shaqeeyo wax siiyaa
maskiinkana u sacyo u adeega sida qof jihaado camal uu la mid yahay marka wuxuu yidhi hebel islaantuu ka dhintay ilaa armalati fulaan waxaa waye hebel islaantuu ka dhintay ugee wa ilaa aytaami fulaan hebel agoontiisi ugee wa ilaa masaakiini aali fulaan cid hebel masaakiintooda ugee wa ilaa micwasii aali fulaan cid hebel kuwoodii baahnaa micwasii waa kuwoodii baahnaa kuwoodii baahnaa ugee marka waa kala qayqaybiyey isagoo aad iyo aad ugu baahan intaas ayuu marka qisadii saciid ibnu caamir aljumaxi noogu soo sheegay laba waxba waa ka baranaynaa qisadii saciid khubayb arrintiisii waa ka baranaynaa oo khubayb bin cadiy iyo sabarkiisii iyo dhiigga iyo maaragtay iyo naftu u huray diinta iyo diintan asaa nagu soo gaartay inay rag saa ugu soo dhinteen oo korkooda loo soo googooyey horta waa ka baranaynaa arrinta labaad oo ka baranayna waxaa waaye saciid bin caamir iyo adduunyo suu iskaga leexiyey xataa isagoo madax ah oo magaalo dhan madax ka ah oo hantida u imaanayso oo cumar bin khadaab uu usoo dhiibahay haddana suu adduunyada iskaga fogeeyey iyo qoyska saciid iyo xaaskiisii si ay iskugu kaalmeeyeen inaan adduunyadan lagu fidnoobin iyo qofka madaxda noqda ama qofka muslim arrinkiisa qaada inaysan sharaf ahayna culays iyo mas-uuliyad inay tahay oo madaxnimadu inaysan darajo ahayn laakiin takliif inay tahay wax culus inay tahay oo aad looga walwalay inay tahay ayaan ka qaadanaynaa qisada saciid bin caamir aljumaxi uu isku dooduubo qisada saciid waxaan ka baranaynaa iimaanka qofka qalbigiisa markuu dego sida uu qofka ka dhigo iyo maaragtay yaqiinta iyo alle ka cabsiga iyo tawxiidka run markay qofka qalbiga u degaan oo run qalbigiisa ay u qabsadaan in qofka noloshiisoo dhan ay wax ka bedeli doonaan oo waxyaabo ewel micno la lahaa aysan hadda micno la samayn doonin marka iimaankeena inaan adkaysano siyaadsano iimaanka qofka mu'minka yaziidu wayanqus duruusta aan ka baranayno taariikhda saciid ibni caamir ayay ka mid radia allahu ilaahay ka raali noqdo can saciid ibni caamir aljumaxi waqad kaana wuxuu ka mid ahaa min aladiina kuwa yu'thiruuna ka doora calaa anfusihim nafafyaalkooda dadka kale ka doorta walow kaanad haba ku sugnaato bihim ayaga khasaasatun baahi ha ku sugnaatee kuwa naftiisa nafta dadka kale ka hormariya ayuu ahaa qad kaana wuxuu ka mid ahaa min aladiina kuwa yu'thiruuna ka doorta oo ka hormariya calaa anfusihim nafafyaalkooda dadka kale naftooda ka hormariya walow kaanad haba ku sugnaato bihim ayaga khasaasatun baahi وإلى هذا يكون دماتي قصة الصحابي الجليل الصحابي الثاني من كتابنا سعيد بن عامر الجمح صحابي كان طفيل بن عامر الدوسي تاريخ سكب الله إنه هذا وبالله التوفيق والله أعلم وأعلى السلام عليكم ورحمة الله